dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, tallaabadan ayaa ka dambaysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 carruur ah oo ka dhacday dalka Gambiya. Hindiya iyo Gambiya waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka, waxayna Afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheexay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, sida ay qortay wakaaladda Reuters. madaxa shirkadda Maiden Pharmaceuticals, Naresh Kumar Goyal, waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhibto arrintan markii ay weydiisay Reuters. haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta Gambiya la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed, bartayna cilmiga daawada. waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta Gambiya. wax xaqiiqo ah lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada dhaqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada controlsho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka. maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaya la registraynin, wax xog cad oo ku saabsan inay marka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alartigu ka yimiday WHO shaacisay oo aan fariinteeda helnay ma suura gelin in macnaha in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya oo wax noo xaqiijiye ma jiraan ilaa hadda. suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin. daawooyin ay soo saartay shirkaddan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in la yidhaha banfidiyad Hindiya, daawooyin ay shirkaddaas soo saartay waddanka ma yeelaan oo noocyo kala maya. haddii hataa oo aan waa raadinay globally, shirkaddan shirkad weyn waayo oo dawooyin badan soo saarto. Soomaaliya uma jirto listiga waddamanka ay dawooyinka u dhoofiyaan. so marka meeshaas ayay macnaha nooga caddahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan. Djibouti, Kenya, waddamankaas oo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya, ma ku arkin. Dr. Cali Siciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waxaa kaloo uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaadhan. wallahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socdaa waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay raqiis uga gadaan. sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo waxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay wax tarayso iyo safena ah. waaye hadda sidaad sheegtay ma caddayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala? horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay haddii soo gaarin lama ogaan karo. waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis. daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperatureka loogu talagalay laguma keediyo. maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo, meel kastaa lagu gadaa. marka waxaa dhici kartaa maaragtay maadaama control uusan jirin, wasaaraddii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo, oo maaragtay aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin. daawooyinka markii la keenayo waxay u baahan in la baaro, samples in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo, puritygooda la fiiriyo identitygooda la fiiriyo,
hataa laga fiiriyo mataqaana maxaa la lahaaya hadday jermi contaminated ku noqday oo jermiga bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo qaar samples loo soo qaado kadibna maaragtay shirkadii la yiraahdo haye waa kana waxaa haysataa certificate of analysis-ka waa lagu sameeyey waa iibin kartaa. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaludiin waa agaasimaha cisbitaalka Martiini waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu u baahnaa qofka xanuunsan. Daawooyinka waddanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiro. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aad uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keediyo ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay nidaamka u degan ee la yidhaahdo drug regulation systemska oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandaries ama dawooyin aanan aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo mathalan haddii ay jermis dile ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jermiska dilaan qaar ay ku yareen iyo qaar ay kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale dawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yidhaahdaye oo falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo marin. waxaa iyadana xaqiiqo ah oo jirta in dawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka la dhahayo balse marka daawo la sameynayo warshado daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka actualka daaweysa iyo dawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa la dhahaye capsule-ka iyo colorka iyo quruxdii leh research ahaan loogu talagalay ay shirkado daawooyin kusoo qufaan Soomaaliya. waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo markii ingredients la isku dardarayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay ama saturationka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la package gareeyo only waagi maalmahan suuqa laguma arki laakiin waagi hore lagu arki jiray Soomaaliya kaliya laga iibin karaa. horta ciladaha weyn ayaa dawada iyo sektorka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical services-kan agaasima ka ahaa waxaan samples fara badan oo dawooyin aan dibadda u dirnay natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard ah inay jiraan dawooyin markii capsule la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxba aysan ku jirin oo balsiba iyo kuwa qaarkood oo ingredientski ama elementski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin marka ciladahaas way ka jiraan Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaludiin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee? India kamida, China kamida, wadamankaas ugu badan oo Turkiga oo hadda maaragtay suuq weyn asigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaata daawada. Yurubna way ka imaataa laakiin ma gaarsiisna wadamankan kaleeto oo China, India iyo Turkiga. waaye marka ganacsigan daawada iyo soo shaqeeyo bal wax yar sawir guud iyada si adduunka horta suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah daawada soo saara waa inay wadankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. marka adduunka oo dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo doos yar ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo registeraynayo markaas oo ka helayo wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gadi karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsanaan. marka taa ma jirto marka Soomaaliya marka waa suuq iska furan oo cid walbo ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan. daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tayadoodu kala dhantaalan tahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyayaasha iyo daawooyinka carruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaludiin mar kale.
marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa kuweebaa u badan taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris oo hadda kuwaasaa u badan ma dhihi kara laakiin dawooyinka ugu practically la arkay khatarta ay keenaan practically la arkay waxaa ugu badan dawooyinka la dhahaa antibioticska iyo kuwa loo isticmaalo ee carruurta aad u isticmaalaan dawooyinka hadda hindii laga qaylinayo kale anaga aadaan loo keenaa facaaliyadoodana aad iyo aaday u yartahay macnaa facaaliya waxaa la dhahaa falgalkooda aaday u yartahay nasiib xumada jirtana waxaa waaya hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ka hooseeyaa ay kama hooseeya intaba ma dhacna oo aan ku xaqiijin karna iyadana ma jirto adiga waayo aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka haa in badan ayaan la kulmay runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo dawada caadigaa wax ka dareeweysa simbali marka dadkaa daawaa dhib u geysay qaar waxaa aragnay dawada xataa heerka labaad dawada TB-da waxay leedahay heer koowaad seerastilaan wax la yidhahdo qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso uu qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinaya dawooyinkii waxaa samaysmaysa marka leer labaada la gaaro MDR macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax uu qaban waayo waa arag kow waxaan aragnay sidoo kale dad badan oo dawooyinkan substandarka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuuna ka qaaday maxaa la dhahay baaritaanada aan la sameynayn darteed hypersensitivity uu jirkooda ka qaaday maxaa la dhahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama keliyahooda ama organskooda uu damage garoobay xadis walaa xaraj waay macnaa hadda waa laga sheekeenaa la dhaho waa bad furan waxaan ahay macalin arday baa research ku sameeya aan ishraafaa waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qisa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaan runtii lasoo koobi karin doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin agaasimaha cisbitaalka martiini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka waxay ahayd in la qabto oona haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaya inuu muunad keeno sambal laga hubiyo qualitigeeda waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado oo wax walba oo bani aadan ku qaato oo la dhahay fit for human consumption waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed hay-ad qaanuun ahaan iyo sharciyadina haysata oo dawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo marka la keenayo farmashiyaasha la geeyna kadib jeegaraysa laanna dawada way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan maadaama bani aadan in lagu daaweeyo uu qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waayo qodobka kalena waxaa muhiima in uu jiro nidaam maamul oo qeexa habsamiyo isticmaalka daawada oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara yaa loogu talagalay inuu qaato yaa iibin kara yaa iibsan kara maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa ma xarun caafimaad matanaa guri loogu talagalay ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladduna riqaabo ku leedahay macnaha korjoogteen ay ku leedahay ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto loo keliya beelo beerka xanuuna uu kaga dhaco iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurrada la daaweyn waayo marka khataraha daawooyinka ka dhasha aaday u badan yihiin doctor cali siciid fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah dowladda soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan meel kastoo adduunyada ka tirsan shacbiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabad waxay cunaan iyo waxay cabaan caafimaadka waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba dowladda marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo in la sameeyo quality control oo maaragtay daawooyinka markay soo degaan maaragtay markaa hay-ad ay jirto laab uu jiro analysiga lagu samayn karo nidaamkii la marsiiyo la sharciyeeyo shacbigii wax fiican oo markaa tayo leh daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan
marka hadda waxaan maaragtay soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey. marka hay-adda shaqadeeda daawooyinka iyo cuntada keliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii wadanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon-yahano ah oo maaragtay dawladdana ay geliso kharash, laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon-yahano ah daawooyinka maaragtay daawooyinka sharcudooda yaqaan ka shaqeeyo iyo taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. marka nidaam dawladeed oo jiro la maro, aanan qof isdhihin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo. hataa keedinta nafteeda muhiimad waayo. daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhicin, shaqo laguma laha soomaaliya, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinahay in galka baaristuu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta gambiya aan la keenin soomaaliya. wasiirku waxaa kaloo uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. waxaa kaloo uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.